ku gurigu goobjoog ma waxba kama hayno anigu laakiin dhibaatada halka ka dhacday ee waxba la nooga qaban ee dandamis jirin ee loo lacagteedii la naga ururiyo waxba la noogu keenin ee dhibaatada halka ka dhacday door walba dhacda aan waxba la nooga qabanaynin ee aanan waxba ka jirin Soomaaliland haddaan nahay gobolka Awba waxba ahayn ayaanu anagu ka marar dilacsanahay oo maartay baab wax la idin keenay dandamis baa la yidhi dandamiskii la noo keenay ma lagu soo qarafay tagay lacag baa lagaga guray وأنا حوق أبي ما أنت ودبيسي يعيد كبوليس كوا وحي قرمت لهاي يمدي أو بويدي كاني تبدي اسمه أنا رك عيد كبوليس كايا كاني بويد يجا يا محيط أنا سنعمل كوكلة كل شوية وبختي مركا وحنا أدياد ومهدنا قيا عيد كبوليس كا قبل كأوضل يد اليارة كنا الحافظة يد ما عند اليار توادن وقاعد وبختي صاي لا يمكن بختي لسه والسلام عليكم صاحي مناني عمر هايل قد قرأ حكي عن هي صاحي مدى أنا وأنت صدق عيبة قد يقيق استراليا من داخل دارنا قضية ورقيقة يعني من وحي قفصلين ما تجناي جال جاجري جال رينج بوليس يا أم هاد نقينا دمدم إسباني بسني إلا كقرب في سنة عقب لا قاضي أنا كنت مدرب بحي مالتي ورسي مركي مسيت في الشقي سمعت قرن كان ما قلتي واحد رقم قبل واحد قلتي يقولي لما قلتي واحد رقم قبل شعب قاربه قلتي واحد بقتي ولا باين حكومة السيران وبدون تغييرني لكن سدوا عذرنا لقي يسقوا تهران سمر برجع ولي هاي عملها تريس اللي كبرجع ويدي قرمت النصاق الله كل واحد مجال المرة سدوكتين تدمس يوح وبختيو مركي طب واحد ربعي ويدي عيدك قرن كسوق حي هلكن شعبه iyadaaba inta yar waqtiinteeda lahayd wixii guriga dhex yaalay nafkuma bixisaan warku hayno laakiin wixii dhex yaalay iyo guriga dhamaantii uu jubtay kullay masiibada ilaahay waxa ka baryaynaa inuu bedel khayr qabo ilaahay ka siiyo cidii guriga ku jubtay kullay waxaan codsanayaa oo sheegay dadweynaha reer Boorama inay keenaan dandamis laana aanay soconin رفعت كمان تدوينها ساسو غرمدي او غورغا انت غوريا كلا انت كفيتي بختيسي marka intaasaan ku soo gudbinay magacay waaxid baan Axmed Madadash waa ka tirsan deegaanka degmada Boorama runtii waxa ka dhacday masiibo rabbaani ayaa meesha ka dhacday markii aanu maqalnay loo soo sheegay in gurmadkii ugu horeeyay waanu ku nimid gacan waxba laguma damin karo waa biyo iyo ciid iyo shacbigii caruurtii dumar wixii waanu ka wada qayb qaaday runtii waa arrin inagu soo noqonaysa waa arrin aynaan inaguna ka korayn shacbi ahaan iyo ka deegaan ahaan inagoon cidnaba eedaynaga iskale cid kalooynu eedayna maanta male maal walba waxaynu hor taaganahay guri gubanaya kaalin gubanaysa aqal gubanaya dabdabis baynu maal walba hadal qaatay waxaa ceeb inagu inaynu ganacsatadeennii iyo dadkeennii aynaan weli isku tashan oo inaan dabdamis aan iibsano ama aynu keensanno inaan weli ku tashan halkan laba dabdamis saddex dabisano ma aynanu cudeedayn eedda waxa iskale degmada iskale gobolka iskale ganacsatada iskale shacbiga iskale annaga iskale إلهي روح لنا dadka ay maanta dhibaato ku dhacday Ilaahay ugu gargaaraan leenahay Ilaahay wax khayr qaba halkoodii ugu bedelaan leenahay maanta way bisha January 2020 waxa ka dhacay guri kamid ah guriyaha liinka ayaa alxamdulillah in dhalinyarta gobolka hortii aad u abaabulan ciidamada booliiska dhammaan shaqaalaha dowladda hoose iyo dariskaba aad baa loogu soo gurmaday wadiga arkay dabkii waa laga gaaray hanti badan waxway ku noqotay hantidii guriga hadday tahay dhismihiisi iyo hadday tahay wixii dhex yaallaba u baabeen laakiin wadada oo wax ku noqday ma jirto taasina wax ilaahay lagu xamdiyo hanti waa la helaa laakiin dadka dee lama helo mar haddii dadka ilaahay ka badbaadiyo wax ilaahay lagu mahadnaqo waxaan kaloo bulshada maanta u bishaaraynaya bishaa imika February bilaabmaysa 2 cisho kadib inuu soo socdo maaragtaa uu imanayo dabdamiskii magaalada wala iibiyay imika dabdamiskii Holland ba hadda laga soo saaraya markab soo socda bisha February hadduu ilaahay ninku gaarsiiyo way imanaya mushkiladan dabka soo noqonaysana runtii waa laga maaragtaa waa laga bogsan doonaa waxa keenay dabdamis la'aan
booyada biyaha la keenaya inta la dhaaminayo waqti bay qaadanaysaa laakiin marka dabdamiska la helo wuxuu noqon doonaa mid meel standby ku ah shaqaalihiisa annaguna dawladda hoosaan waxaan ballan qaadaynaa dabdamiskaasi markuu yimaado inaanu shaqaalihiisii iyo maintenancekiisii inaan gacanta ku hayno oo shaqaale shiftiyo isbedelo 24 saacadood shaqeeyo loo helo si markasta mushkiladani timaado xal loogu helo marka kolley waxaan ummadda u sheegayaa dhibtaasi boorama aad bay ugu soo noqnoqotay dab uu keenaya dabku masiibadaas wax in yar baa ka hadhay kabogsadkeygii bisha February runtii waxa weeyaan waa wax badan baa laga tiri doonaa markuu yimaado dabdamiskaasi xaafadda dhibaatada soo gaadhayna waan uga tacsiidaynayaa wixii gargaar iyo maaragtaa dee wax la qabadna diyaar baan u nahay annaga ka dawlad hoose ahaan mar hadduuna dad waxba ku noqon hanti waa la helaa hantidana ama ha noqoto dawladda ama ha noqoto biliiska waanu ka gargaari doonaa haddii ilaahay